بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. axbaabi waa in salaamay meel kastood joogtiin, nabadii korkiina ha ahaato. salaan ka bacdi, waxaad ka warqabtiin caalamku maanta sida uu u socdo in aynan si fiican ahayn. waxaynu wada ognahay oo aad kala socotaan shaashadaha wararka lagu soo gudbiyo dhacdada foosha xun leh ee ka dhacday 2 cisho ka hor dalka Faransiiska, khaasatan caasimadda Paris. wiilka dhalinyarada ahaa ee Afrika ka soo jeeda Maaliyaaga ee muslimka ahaa ee masaajidka dhexdiisa lagu tukriyey. nin baa isaga dhigay in uu rabo in uu islaamka soo galo, islaamka uu wax ka barto, diinta uu wax ka ogaado. waxaa dhacday in uu soo dhaweeyey wiilkaas, ama ninka uu soo dhaweeyey uu soo gal yidhi masaajidkuu soo geliyey. kabacdi markuu weysadii tusay, uu masallihii yimiday meeshii lagu tukanayey si uu u tuso ugu tusaaleeyo uu u baro sidee loo tukadaa, baa markuu marayay sujuuddii uu sujuuday ayuu ninkani wuxuu sameeyey mididii uu sitay tooridii iyuu soo qaaday. markaasuu tooridii 50 jeer meel walba maaragtay kaga taagay uu ka geliyey subxaan allah. kabacdina wuxuu sameeyey video ayuu soo qaatay uu ka dulduubay isaga oo qaylinaya oo dhahaya ilaahagaad u sujuudayseed u tukanayso dee wax ha kuu qabto. subxaan allah. isagoo qaylinaya oo caayaya markaa abuubakarna naftu ay kasii baxayso oo uu rafaadayo sakaraadkii uu ku jiro. ilaahay subxaana wa tacaala ha u aqbalo oo janatulfirdows alla ha geeyo. faransiisku shacabku maxay sameeyeen? dabcan mudaharaad bay sameeyeen. dowladdu in badan kama hadlin. waxaa la sheegayaa maanta markaa in uu u baxsaday ninkaasi talyaaniga. kabacdina islaan habaryartii ah markuu u tagay ka shikaday uu ku yidhi qof baan soo dilay, mana aan dhannayn, maskaxdayduna ma dhannayn. waa farsamada maaragtay dhulkan qurbaha la joogo marka laga hadlayo, in wax lagu baxsado, sheego in aad khalkhal maskaxdaadu ay ku jirto oo aanad dhannayn. ha waxaa la sheegay markaa in uu booliska tagay, kabacdina la yidhi in loo soo gudbiyo Faransiiska usbuuciyay qaadanaysaa si loo hubiyo ninkani inuu dhan yahay inuu dhannayn xaaladiisa mental. dadkii mudaharaadka sameeyey ayaan rabaa codadkooga in aan idin maqashiiyo, bal ila dhagaysta insha allah. Hashtag je suis Aboubacar, regardez en lettres blanches sur fond noir, nous sommes place de la hashtag baa Liberté la dessus. sameeyey Ce ah peuple détenu par un enfant, Abubakar. l'islamophobie tue plusieurs centaines de personnes hier soir, place de la République. Je suis là pour notre frère Aboubacar, qui a été sauvagement assassiné par un terroriste. Faut le dire, nous sommes complètement bouleversés par ce qui vient de se passer. Aujourd'hui, il est tout à fait possible de mourir si vous êtes musulman. S'ensuit une minute de silence pour Aboubacar Cissé, quelques heures après cette marche blanche qui est partie de la mosquée de la Grande Combe. À sa famille, à nos compatriotes de confession musulmane, j'adresse le soutien de la nation, a tweeté hier, peu avant 15 heures, le président de la République, au moment précis où son ministre de l'Intérieur était en déplacement. D'abord, un message de compassion vis-à-vis des proches de celui qui n'est plus, d'Aboubacar Cissé. Je voudrais leur dire vraiment la plus totale solidarité de l'ensemble du gouvernement. Trop tard, beaucoup trop tard pour la gauche. On a quelqu'un qui est ministre des cultes, c'est sa fonction, c'est son rôle, il est payé pour ça, et qui n'est pas capable de dire hier, pendant toute la journée de samedi et toute cette matinée, que c'était un acte de haine envers les musulmans. TCUE, c'est Jérôme Gage, en fâcheuse posture. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Gage? Oh, à un moment, on me dit sioniste dégage. C'est un rituel de manif. C'est ainsi. Non, c'est pas un rituel, c'est faux. Ouais. Commencez pas à dire ça, c'est faux. C'est de la provocation, c'est pas. waa warkii telefoonka idaacadda Faransiiska number 1 la yidhaahdo, warkiisi ay soo gudbiyeen weeyaan.
shalay toole xalay. Em, waxaa suuragal ah haddii uu qofkaasi ahaan lahaa cid kale, waxaa dhici lahayd runtii in si kale reaction kale la sameyn lahaa. Ninka la yidhaahdo Mélenchon oo ilaa hadeertaan in uu ra-iisul wasaare ka noqdo dalka loo diidan yahay, loona codeeyey, ayaa isagu markiiba maaragtay meeshii dadku mudaharaadayeen yimid ay kana hadlay, muujiyeyna in uu kasoo horjeedo cunfiga iyo nacaybka muslimiinta lagu hayo dalka Faransiiska. Walaalahay, cashar baa ku jira meeshaan marka, oan u baahannahay runtii in aan ku baraarugnay dadkeena qurbaha ku nool, meel kastoon joogno, Maraykan ha noqoto, Canada ha noqoto, Yurub ha noqoto, Australia, New Zealand, South Africa, Asia, meeshaad doonto caalamka ku noolo, laakiin in aad baraarugsanaato ood ogsoonaato in ay wax kasta dhici karaan. Marka ammaankaagii iyo safetygaaga in aad ilaashato, qofka u horeeya ilaalinaya inuu ilaashado laga rabo adiga weyaan. Cidda labaad ee ammaankaaga ilaalinaysa waxa weyaan instituyada ama institutionada aad u shaqayso ama aada la shaqayso, maraakista, masaajida, hay-aadka, dadka shaqaalaha ee muslimiinta ay u shaqeeyaan, ayagaa laga rabaa in ay sugaan ammaanka shaqaalahooda iyo dadkooda iyo ummadooda. Cidda saddexaad ee mas-uuliyaddaasi ay saaran tahay waxa weyaan dowladda, isla markaana ah saqafkii ay bulshadii iyo ummaddu ay ku hoos nooleyd. Marka magaalo kaste, kominka uu ama councilka ay degan yihiin, ama xaafadda aad degan tahay, booliskeeda iyo maxaan ku dhahdaye hay-aadkeeda amniga ayaa laga rabaa in ay sugaan shacabka nabadgelyadooda. Waa iga baaq, waa iga baraarujin in aada loogu baraarugo, aadna looga warqabo waxa dhacaya. Marka adiga marka aad aabbo tahay, markaad hooyo tahay, markaad nin dhalinyaro tahay, markaad gabadh dhalinyaro tahay, adaa lagaa rabaa in haddaad jaamacad aadaysi, haddaad shaqo aadaysi, haddaad masaajid aadaysi, haddaad masaajid ka shaqaysid, haddii aad hay-ad ka shaqaysaba, in aad fuujignaato. qadartu waa halkeeda, laakiin khuduu xidrakum ayuu ilaahi subxana watacaala qur-aanka inagu yidhi. qaata ammaankiina, qaata maxaan ku dhahdaye digtoonidiina. idan digtoonaada, aynu wada digtoonaana insha allahu tacaala. ilaahayna subxaana watacaala ha u naxariisto wiilka, sharta kuwa sharwadayaashana allah inaga xafido. aad baan idiin salaamayaa. saarag dambe oo xiisa leh. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu. fi amaan illah.